guddiga arrimaha dhulka magaalooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo geega kulan kuwalidi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya kaas oo lanku hadlaayay bilowgii la dhaafay waliyabo qarsoomi waliba howlo markaasi horyaala guddiga shirkan iyo waliba gobrog hay gudoomiyaha guddiga waan ee wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyanta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go kulanka waliba gobrog hay xubno guddiga agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo xubno ku darari nootayinka magaalada Baydhabo shirka kuriyada waliba warbaahinta la hadlaya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyanta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go waliba uu faahfaahin ku bixiyay shirkan iyo waliba muhiimadda markaasi u salahaye الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جيجا التاريخ ده السيد بالتمنات لما ذكروا إلى وعتي أفرت وين يقف صومي شركي مركز أنا قبل جرنا شركة أرمها جدية أرمها الأولى مجالين كوفر كبيت صوماليا شركة صو بدنا لما يبلغ هالمرة وزارة ولا جدية هو جامعة سبق قبل جري شركة أجندة شيء هنتي ما هي أجندة مهم وكصاب سمار أرمها الأولى جيج ساسوكا ما دام شرح حر الرياضيين شركة قدام بي يور بحين ورطل كلون سداي حكاين تجدي وهنتي ما درى هرا قبصومي يعني ولا حتى لقوا ولا فضاو ساسوكا لقيك ماي شركة عزومني حافظين النتائج دقمة بيداو سيو ويسين ما دام شركة دول المجالين كشيء وقضب شيء الحديث الدحات والشيء ما درى النتائج يهولي يقبض ضايع يدور كفلاس gaar ahaan anshuurta iibka oo ah roolka dilashal gadada qaabka lanshal gadada in dawladdu ay kala tahay wasaaradda maaliyadda anshuurta iyo fadaas madarayshini oo lacag transaction kaas dhiyaw qaybta iyo kala hadaas marka runtii dood badan la kuwaalday way la isla kasay in oo marka kuwad runtii hadhawaayeen notayooyinka dawladdu in la shaqeeyaan hortan la shaqeeyay jireen hadana la shaqeeyaan hadana armagoon lahaasay talooyin badan ka dhiibdeen oo inay marka hore wacyigelin badan la siiyay bulshada oo ku saabsan qaabka oo hadda dawladda ziyaaday oo wulishana jirtay laakiin haddana gadaalada madarayso dawladda hadda ku dhawaaqday inay oo anshuurta iibka wala raw la qaado oo wasaaradda maaliyadda qaada doolka la shalgadaw madarayso notayinka maadaama ay shal wareejiyaas doolka la shalgadaw lacag wasni oo wasaaradda maaliyadda in anshuurtii tariifyada ka saarta saasoo kale meel iska afkastay inay oo guddiga notayinka yoonay wasaaradda maaliyadda wada fadhiyaan iyo wasaaradda cadaaladda in tariifada la qaado doono ama percentage la qaado doono inay oo isla ka saamar ka hor saasoo kale idoo goobjoogn wasiirka maaliyadda wasiirka cadaaladda san goobjoog marka runtii sifaynayka dhamaaday shirka wayna kala qayb galay wasiirka cadaaladda oo guddiga ku tirsan wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha runtii ajandaha geega sifaynayay dhisaasoo kale wala ka hadalay madarayso in maadaama shaqada sheego in guddiga xalinta khilaafaadka la soo bi madarayso miiskan insaarnay guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo degmada Baraawe oo si dhaqso in loo landardagay saasoo kale degmooyin kale sida Xudur iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka saabsan iyana in la soo bi guddiga arrimaha dhulka maadaama dhibaatooyin badan dhulka madarayso dhibaatooyin badan dhulka dadka haysta oo isqabsiyo iyo badan saasoo kale madarayso way wasaaradda howlaha guud bandhigtay sharciga qorshe madarayso sharciyad oo qorsheynta dhulka magaalooyinka iyo horumarintooda ee koonfur galbeed iyo gobol